maasha allah walaalay qaaligaa soo dhawaada maanta qadadan quruxda badan leh faamilka looga soo tuuray caruurta maasha allah way ku cunayaan ilmaha yaryarka xitaa aana ilkaha haysanin way ku cuni karaan maasha allah waa kuskus oo si fudud ah usoo sameynay insha allah waana ka heli doontiin hadduu ilaahay idmo caruurtaada iyo faamilkaaga uga faa'iideey sidaa u sameeyna insha allah daawasho wacanaa idin leeyahay muuqaalka haddaa ka hesheen like saara asxaabtiina la share gareeya haddii aad jeceshihiin in cuntooyin qurux badan idin soo geliyaan qaybta commentiga iigu reeba idin leeyahay soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga ku xiran janalkayga Muneeza meel walba adduunka joogtaan in ay caafimaad qabtaan rajeyna haddaan ugu cusub tahay subscribe noo saar gambaleelka furo muuqaalkana like saar asxaabtaada la share gareey maasha allah walaalay qaaliga saa u jeediin hadda digsigaana dabka soo saartay hilibaa kusoo shubay mujeedin hilib ari waa hilibkaa kusoo shubay qiyaasta wixii adiga aa haysatid aa ku shubanaysaa haddana waxaa kusoo shubay nus liitar biyo ah waaye waxaa ku shubay ama 500 mililitar qof walba soo u yaqaano haddana waxaa kusoo daray bar aa kusoo daray waa nus liitar iyo bar saas hadda wuxuu ku yahay liitar biyo iska dheh maasha allah marka kuskuskaa karinaayana saana u yaalaa waana nus kiilo 500 gram waaye kuskuska dadka carabaha ma kariyaan ayaga biyo kulul la dhigaan laakiin haddii aad rabtid inuu si fiican kuugu macaanaado caruurta ku cunaan dhanag fiicanna kuu yeeshto insha allah sidaan u sameyso hadduu ilaahay idmo marka waxaan rabaa inaan karino hilibka kadibna maraqiisii aa ka baxsano maxaa yeele wax haddaa biyo lagu kariyo dhanag ma yeelanayo laakiin maraqiisa markii aa ku karisid wuu ku macaanaana maasha allah qurux uu ku noqonaa soor baransa xitaa wuu eg yahay dadka soor baransada maxay ahayto Soomaaliya isticmaali jiray way yaqaanaan sidaasna wuu eg yahay maasha allah waa kana waxaa ku soo daray aheeda idinka ilaaway wax walbo caraf xawaajiyaal wax yaroo maraq digaag rosemary adiga wixii guriga markaas ku yaalo aa ku karsanaysaa markii uu soo bislaaday kadibna geesa u baxsanay digsigan madowga ah soo qaadanay marka waxaa rabaa inaan maraqi aad dalaco oo basal aa ku dalaco inta u jeediin basal iyo toon aa soo yaryareeyay meeshaas igu jira waa kala reebtay intaas kale waxaa rabaa inaan hilibka maxay ahayto ku sameysana insha allah haddana waxaa kusoo shubay saliid yar oo maxay ahayto saliid saytuunka ama saliid olive-da waaye aa kusoo shubay maraqa wax saliida kuma darin kaligiisa saaraya ahayd kali caraf leh ku daray si markaas maraqi uu noogu noqdo maraq caraf badan marka waa kana walaalay qaaliga jubba kan waaye ka isticmaalay waxaa kusoo daray qaandada yarta ah saa u jeediin aa kusoo shubay marka aad iyo aad u fudud yahay maasha allah waana ka heli doontiin haddana waxaa kusoo daray xawaaji maxi waayo aniga guriga aa ku samaystay hadda kusoo daray saliidii iyo basashii bardhadan biyaha kusoo kariya ayadana saa u jeediin waa dhadhanbalay marka waxaa rabaa inaa qubka ka fiiqo hilibka ku sameysano bardhada noocaana caruurta u sameyso maasha allah way ku korinaysaa aad iyo aad ayna u macaan badan tahay hadaarta caana ugu sameyn kartaa hadaartin xoogaa yara u dhadhanaani kartaa ovenka u gelin kartaa sidaa jeceshaa sida hadda u sameynayo kalo oo aan hilibka ugu dhex daraayo oo ugu sameysan kartaa caruurtana maasha allah way kugu qurxnaanayaan waa kana walaalay qaaliga markay isku caraftay intaas maraqeynii biyihiisii aa rabaa inaa kusoo shubo marka waxaa rabaa carafkii aa ku shubay inaa ka miiro rosemary iyo maxay ahayto xawaajiyadii iyo basashii aa ku daray aa rabaa inaa iska miiro marka waa kana walaalay qaaliga dabka hadda marka waxaa sameynaynaa waa ka daminaynaa jikada way kulushahay laakiin dabka waa ka daminaynaa qiyaaska biyaha aa ku karinaysid meeshaasay ku qoran tahay wadan walba aa joogtid fartiisa wuu ku qoran yahay nus kiilada inta biyo markaas loogu talagalay lagu karinayo dushay uga qoran tahay marka walaalay qaaliga waa kana waa kusoo shubay waa 500 waa nus kiilo uu badbadaa dabkii waa damiyay waa daboolaa marka daboolo isaga kaligiis isuursanayo waxaan maraqaan iyo waxaan oo dhan uu gursanaa uu dhuuqsanaa maasha allah qurux oo kusoo baxaa furfur oo kusoo baxaa insha allah marka sida ugu fudud oo uguna macaanka badan oo loo sameysto waaye
marka hadda wax yar kadib waa isku soo noqonaynaa dabkiisa iska saarnaanaya maasha Allah walaalay qaaliga waa kana diyaar waaye waxba uma harin maraqi intaas ka reebtay hilibka ka bixiyay marka insha Allah qof walbana meeshaas iska fiiriyo karis uma baahno hadii kale uu ka halaaba hadii aad dhahdid waa karinaa haddana digsi kala soo qaadanay waxaa ku shuban kistiyareedo basashii iyo toontii noo hirtay saliid yar ku soo daray qaandirista oo haafkeeda oo maraq digaag ah ku soo daray haafkeeda xawaaji isku dardara ku soo daray kanna waa basbaas waay basbaaska wax yar inuu noogu carfo maxaa yeelay ilmaha iyo cunaymo haddana waxaa ku soo daray xulba shiidan oo wax yar ku soo daray marka waxay ku xiran tahay caraf wixii adiga gurigaaga ku yaalo aad ku darsan kartaa muhiim ma ahan inta aniga ku darsaday inaad ku darso daarta ka badsay daarta ka yareysanaysaa marka waa kana asxaabe hilibkii hadda ku soo ridaysa ujeedin maraqii wax yar oo dara waxaa rabaa in xawaajigii iyo maxay hayto maraq digaag yar ah ku daray hilibkii oo lafaha ka gala ma fahanteen marka waa kana ku soo gidgidinaynaa saas ugu soo gidgidinaynaa hadaa rabtidna sida qof buubootinayo kala ka dhigi kartaa baradhadan way banoo karsantahay maho laakiin waxaa rabnaa carafkaan iyo dhadhankaas yarka ah in lafaha uu ka galo hilibkii badnaan intaas uu ku soo baxaybo marka hilibka markuu ceerin yahay inuu badan yahay oo maleynaysa laakiin markii aad karisid wax yar oo noqona kana waa dubis rumaan ama maxaa lahaay rumaanka shiidan waay maasha Allah macaan oo kaaga dhigaa hilibka hadaa ku darsatid uu ku dhanaaninaa haddana waxaa ku soo daray liinta qalalan oo wax yariis ah waaye liinta qalalan hadaa haysan intan qalalan waxaa ku darsanaysaa liinta caadiga oo la tuujinayo aa ku darsanaysaa marka dab yar waa waxa uu ku jiro markii aan soo diyaarina saxanka sidaan uu ku soo baxay quruxda badan maasha Allah tabaarakallah inaa ka heli doontiin arjeena aan ka faa'iideysan doontiin muuqaalka like noo saar asxaabteena la share garay soo dhawaada idin leeyahay sida uu qurux badan yahay waxaa ka sii macaan badan sida uu u dhadhamaayo ama uu macaan badan yahay inta haysanin ilaah siiyo inta haysatana ilaah u siyaadiyo marka walaalayga qaaliga ah waxaan rajeynaa inaa ka faa'iidi doontiin wax un haduu ilaahay idmo hadaa nagu cusub tahay waxaa ka codsanaa please walaalka qaaliga ama walaashay inaa subscribe noo saarto dadka singalada xitaa way ka faa'iideysan karaan oo aan rabin in ay wax karkariyaan qadadan waxay ku fiican tahay xitaa markii aad degdegsan tahay dab badan kaaga ma baahno kuskuska saana uga soo tuurnaysa insha Allah marka inta muuqaalka mid la mid ah ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh like tana hanaga ilaaban insha Allah fi amaan